Sheekh Jaamac Ismaan Axmed oo ka mid ah culimada diinta gobolka Togdheer isla markaasina ka mid ah culimada diinta wax ku daweysa Quraanka Alle iyo dhirta ayaa booqday qoyskii ay maalintii shalay ku dhacday mucjisada ka yaabisay bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer waxaanu sheekhu ku tilmaamay arrintaas inay tahay mid sixir ah isla markaasina ay muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanaysay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaanu dadka arrintaasi ka ganacsanaya ugu baaqay inay Ilaahay ka baqaan waxaanu sidoo kale dadka muslimiinta ana uga digay inay arrintaasi iska ilaaliyaan oo ay badiyaan dhikriga Alle waxaana ka mid ah hadaladiisii waxaan uga digayaa dadka muslimiinta arrintan reerkan qabsatay ee ku dhacday oo kale aan soo eegnay maanta dadkii markaan u galay ee quraanka aan ku akhrinay waxay aad u dareemayeen aayaadka sixirka marka la akhriyo aad iyo aad inay u gariiraan oo ay raacsho iyo hin yeeshaan sixiraadu khatar ah oo imka la isticmaalo weeyaan oo uu ka mid yahay nooca sixirka loo yaqaan sixirul khayaal oo misalan dadka biyaha loogu rusheynaya guriga hortiisa oo kale ama waxba loo aasaya gungutimo iyo xalamida arrinkaas oo bariyaan dambe soo badanaya reerkan iyo dad kale oo ku dhacayba waa jiraan arrintaasna waxay u baahan tahay runtii wax ka qabasho oo digniin culus baan u diraynaa dadka muslimiinta inay arrintaa ka feejignaadaan oo adkaarta aad loo akhriyo waliba adkaarta yoomiga oo subaxii iyo bacda المغرب iyo bacda subax la akhriyo adkaarta si looga gaashaanto marka cadawga soo kordhay runtii aan cidna u turayn waxay gaarsiisan tahay arrinkani in ay nafa ku baxaan ama qud lagu jaro waana arrin markaa ku dhisan xiqdi iyo xaasidnimo iyo danaysi adduunyo arrinkaas waa arrin aad u halis weeyaan Ibrahim Faarax Macaan iyo Honkebel TV Burco.